قال you mine قلبي قد كنت على every time قال you mine قلبي قد كنت على every time تمالك وين أني وان كايل أورتالا دير حتى لانكيل قميص مكدير haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo qisaan waxay ku dhacday wiil maalmaha ka mid ah guriga lagu celiyay maalmaha ka mid ah wiilka hooyadiisa aabihiisa iyo walaashiisa waxay aadeen arooskana waxaa qabay familka oo keliya kadib hooyo aabo markay isdiyaariyeen ayna rabeen inay baxaan kadib waxay ugu dhaheen wiilkiina guriga joog keligaaga ayaa tahay inaas ilaali cid walba albaabka kuu soo garaacdana ha ka furin hooyo aabo ila dardaaramayeen waxayna dhahayeen naftaada ilaali keligaaga ayaa ku tahay wax walbana ayaa dhici karaa kadib waxaan ku dhahay hooyo aabo ma aadi karaa meesha lagu ciyaaro ee guriga gadaajiisa kadib waxay ku dhaheen haa meesha aad balse laakiin hawa ogolaan inuu cod kuu soo gudbo meeshan iskaga ciyaar meesha ayaan imaaday waxa aan rabay inaan meesha ku ciyaaro xogaha markaan meesha ku ciyaarayay ayaan waxaan dareemay in qof uu taagan yahay shabaqa dambe ee meesha ku wareegsan kadibna waan la yaabay waxaan soo aaday dhankiiyo ninka gacantana ayuu hadhaatinayay ninkana waxa uu ekaa jookarka oo kale aad ayaan ula yaabay midaas balse laakiin aniga xilligaas ma ahayn qof cabsi badan waxaan soo aaday dhankiiyo ninka waxaan igula hadlay luuqad British anigana waan fahmi waayay luuqadda ku hadlayo markaan fahmi waayay madax ulul waxay si u dareemay inaan fahmin wuxuu ku hadlayo dhowr jeer ayuu ila hadlay waan fahmi waayay kadib gaariga ayuu ii furay waxaana tusay laba box oo ku dhex jirto gaariga gudihiisa box gaduudan iyo box cagaaran ma fahmin aniga laada ninkan macnihiisa iyo sababta waxa sii tusaa kadib waan ku wareeray sababta waxa sii tusinayaan kadib wuxuu la soo baxay buufin waawuna buufiyay kadibna wuxuu isku dayay inuu buufinka oo ka sameeyo shay kadibna wuxuu ka sameeyay ayuu ka sameeyay buufinki kadibna wuu ii soo taagay kaali buufinkan yara qaado kadib buufinka ayaan qaatay markaas waxaan dareemay ninka inuu ka sheekeynayo indha sarcaadyo iyo waxyaabo noocaas ninka wuxuuna qoslo si qosol mucjiso leh oo kale weligeyga maan arkin qof sidaan oo kale u qoslayo ilkiisa iyo afkiisa ayaan ka naxay weligeena maan arkin qof sidaan u qoslayo oo kale waan la yaabay ninka si aad ayuu ii soo fiirinay anigana waan la hadlay sababtoo waxa ugu la hadlay luqadan caadigaan aqaano waxaan dhahay haddii aad u baahan tahay alaabo noocyadan oo kale gaarigayga ayay ka buuxaan soo wareegso banaankii maaw gaariga ayaan ku tusinayaa meesha ay ka buuxaan waxyaabahan oo kale haddaad u baahan tahay aniga waan yaabay waxaan la yaabanahay ninkan waxa uu ka hadlayo kadib ninkii waa uu yaabay waxaan ku dhahay banaanka ma soo bixi kara hadda sababta hooyo ayaa la daartandamay ninka intuu xanaaqay wuxuu dhahay maya waxaasi waa caadi gaariga alaabtaada dhitid ka soo dooro kadibna iska soo noqo kadib nin ayaa maad wuxuu dhahay wiilkay ii soo carray inta halkaan imaaw anigana waan la yaabay sababtoo ninkan aabaheena ma uusan ahayn kadib waan iskii soo aaday dhankiisa waxaan dareemay ninkaanu aniga caawinayo kadibna alaabta ayaan geliyay ninka ayuu dhahay waad maadsan tahay maadaama aad wiilkayga xafiday asigana waxa ku dhahay waxaas dhib ma laha waa la isku leeyahay kadib waxaan soo raacnay ninkii dhahay aab iyo maaw kadib ninka ayaan fiiriyay waxaan dhahay waan xisaabtameynaa kadib ninka ayaan weydiiyay waxaan dhahay adeer adiga intee ka imaatay maxaan maanta waxaan dhacay waxa igu dhacay ninkaas aad u jeedo joker ku eg waa nin dilaa wuxuuna aruursadaa caruurta saagaago kale macnaha daadaada iyo waxyaabo noocaas oo kale ninkaas haddaad mar dambe aragtana ha salaamin aniga maanan ku arki lahayn maamo diriskaaga ayaa soo wacday waxay dhahday wiil ayaa waxa haysto ninkii jokerka ahaa ayuu la hortaagan yahay kadib markaa dhankaaga soo aadan waxaan ku arkayba adigoo ninkii hortaagan sidaas daraaddeed ayaan dhankaaga ku soo aaday si aan naftadaada u badbaadiyo ninka waxa ii soo raacay ilaa guriga markaan imaano wuxuu dhahay orod guriga gal xiro cidna albaabka ka furin oo aadan garanayn ninka waan muhiimahay deecli sababtoo ninkaas wuxuu ahaa ninkii naftadeeda badbaadiyay
ilaa hadda waxaan la yaabanahay ninkaas Joker-ka ahaa sababtoo aniga igu soo damcay oonu i rabay inuu aniga ii wato. qisadani waa qiso aan weligay iloobi doonin. haddii maalinkaas aan ninkaas arki lahayn aan meesha ku ciyaari lahaa sidoo yeeli lahaa talo. haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, videogana sii share garee. waxaa laga yaabaa asxaabta naga mid ah inay jecel yihiin karsoomada noocan oo kale. mahadsanid.